markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu kasoo baxay Soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna kusoo xirtay dekad ku taala Ciraaq intii uu soo socdayna waa ka warhaynay waa wargelinay dawladda Ciraaqna waa wargelinay arrinta waa ka wargelinay sidoo kale intana waxaan wargelinay dhammaan hay'adaha ay qusayso ay ka mid yihiin hay'adda SEMG-ga oo Soomaaliya u qaabilsan cunaqabataynta taasoo ay ku jirto mandate-koodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha Ciraaq weli arrinta waa ku wada jirnaa baaritaana socdo sidoo kale intana arrinta waxay aan kala xiriirnay dhammaan wadamada aan isleenahay waa arrintan waxbay ka qaban karaan sidaa la socotidna arrintan dhuxusha ma aha arrin sahlan ma aha oo waxa arrimo muddo soo socday oo Soomaaliya dhirteedii kayntii Soomaaliya ay lahayd oo dhan ay ku baaba'day haddana sida aan ka warqabno Soomaaliya oo kaymo fara badan oo dhir fara badan lahayd qaybtii ugu dambeysay waxay ku dambaysaa hadda kaliya gobolada jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose weliba dhirta qaarkood geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800 kun oo sano ilaa 800 sano iyo wax ka badan jiray laakiin waxaad moodaa dad isku sheegaya inay yihiin ganacsato oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxaynin ummadda iyo dadka sidaan ka warhaynana marka kaynta la guro kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado roobka hadduu yaraadana xoolihii ku baaba'aan xoolaha hadday baaba'aan dadkay ku baaba'aan marka waa arrin runtii aada looga xumaado taasna waxay xiriir la samaysteen weliba qolooyinka nabadiidka sida shabaabka oo kale oo laga siiyo lacago fara badan oo ama baad leh ama waxaa rabta magaca rabta u bixi taasoo kusii samaynayso inuu dagaalka ay wadaan qolooyinka nabadiidka sida shabaabka oo kale marka dawladda waa ka go-an tahay baaritaan xoog lahaa socda